waxaana lagu halaagay qowmkan dabayl aad u xoog badan oo ninkii caad ka tirsanaa xoogga weynaa dheeraa ee murqaha waaweynaa gebigiisa inta qaado hawada geyso dhulka kusoo daynaysay kadib madaxiisa jirkiisu kala hadhayeen. qisooyinkani nabiyada waxaan kasoo bilownay nabi aadam calayhi salaam, waxaan kusoo xogsiinay shiid bin aadam, soo kale waxaan kusoo xogsiinay idriis calayhi salaam, nabigii ugu horreeyay bara biniaadamka qaabka wax loo qoro, waana nabigii ugu horreeyay ee jihaadka bilaabay. waxaan kusoo xogsiinay soo kale nabi nuux calayhi salaam, markii nabi nuux qoomkiisii la halaagay nabi nuux ayay ka farcamaan biniaadamku mar kale haddana markaa waxaa ka farcamay nabi nuux qowmu caad oo loo soo diray nabi huud calayhi salaam. muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa nabi huud calayhi salaam iyo qoomkiisii caad qaabkii loo halaagay. wuu yeedhay wuu yidhi ilaahu toobad keena oo ilaah subxaana wa tacaala caabuday, laakiin ay u diideenba dhammaantood. kadib markii nabi nuux calayhi salaam qoomkiisii la halaagay waxaa soo hadhay nabi nuux iyo xoogaa yaroo muuminiin ah, laakiin nabi nuux dadka la socoo dhan ma dhalaysay ahaayeen oo waxba may dhalin. keliya nabi nuux ee 3 wiil dhalay la kala idhaahdo saam, xaam iyo yaafid. 3daa wiil ay biniaadamka o dhan ka farcamaan, biniaadamkuna way tarmaan oo way farabataan. waxaana ugu horgaaloobay biniaadamka farcamay ee tarmay qowmu caad. qowmkan nabi huud loo soo diri doono ayuu ahaa qowmkii ugu horreeyay ee gaalooba ee kufriga dib ugu noqda. qowmkan caad sifooyinka lahaan waxaa kamid ahaa qowm waxay ahaan dhaadheer oo xoog waaweyn leh, biniaadamkii agaarkooda ku noolaa oo dhanna way qabsadeen oo dhammaantood igaaba u taliyey. sunna maxamed sal ly slm inoo sheegayna waxa carab ahaa qowmkani carab bay ahaayeen oo waxaa carab ahaa 4 nebi: nebi huud, shucayb, nebi maxamed sal alay wasalam iyo nebi saalex oo thamuud ahaa isaguna reer thamuud. marka 4taa nebi ayaa carab ahaa asalkoodu. qowmkan caad sidoo kale waxaa lagu yeedhi jiray iram maadaama awoyaashooda ay kasoo tarmeen. mid kamida la odhan jiray iram ayaa iyagana saasoo kale iram baa lagu yeedhi jiray. waxaana degi jireen badanka koonfurta jasiiradda carabta, gaar ahaan yaman iyo cumaan xuduudeeda. soomaaliya waaba u dhawaayna talo waqtiga xagga in joognay. waxaanu ilaahi subxaana wa tacaala qowmkan siiyey awood aada u ballaaran, macnaa boqortooyada xoog ay lahayd, meesha doonaan ay qabsan jireen, magaalada doonaan way furan jireen. waxaana run ahaantii abuuran xadaarad aada u ballaaran oo waqtigaas ay noolaayeen xadaaradaga lamida dunida ma jirin. waxaana la odhan jiray magaalada axqaaf. qowmkan caad badanka waxay degi jireen dhulka, laakiin soo kale buuraha way qodan jireen, waxay ka dhisi jireen qusuur aada u waaweyn keliya say ugu nastaan. qusuurta waxba kumay fali jirin oo dheeri ayay ahayd, laakiin keliya waxay buurta u qoteen, buurta u fuuleen, guriga intaa lagana uga dhiseen inay ku nastaan oo keliya. taandhooyin aada u waaweynna way lahaayeen oo taandhooyinka iyagu ku nool yihiin ma ahayn taandhooyinkeenan oo kale, baalo aada u waaweyn ay ahaayeen. oo ilaah subxana wa tacaala qur-aanka maruu ku sheegay qowma caad wuxuu leeyahay acuudu billahi min ashaytaan arajiim alam tara kayfa facala rabuka bicaad irama daati alcimaad allatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad. ilaah subxaana wa tacaala waxaa inoo sheegay xadaarada kuwani abuureen qowma caad in aanay dunida waqtigaas mid lamid aanay jirinba. nacamku ilaahi subxaana wa tacaala qowmkan siiyeyna nacam la tarin kara maahayn. haddii la eego dhulkooda khayraadka uu lahaa oo dhan, midhahiisa iyo jirkooda xataa oo dad dhaadheer oo xoog waaweyn oo qurqurux badan ay ahaayeen. nacamku ilaahi subxaana wa tacaala qowmkan siiyeyna nacam la xisaabin kara maahayn. laakiin dhaqankooda qowmkani qowm aada u dhaqan xun ay ahaayeen. dadyowga agdegeena way leyn jireen oo maslaxadooda ay u isticmaali jireen. waxaana odhan jireenba man ashadu mina quwa, warhaadhayaa horta naga awood badanana kolaabtaa bay qaraacan jireen. xaaladooda marka xaggaa marayso oo dulmigooda batay, ilaahi subxana wa tacaala wuxuu soo diraa nabi huud calayhi salaam. nabi huud ayaa noo imaado oo u sheega intii nabiyadu u sheegi jirinba qowmkoodii inay ilaahi subxaana wa tacaala ka baqaan oo ilaahay caabudaan oo toobad keenaan, shirkigan iyo dulmigan waxay wadaan iska daayaan. laakiin waxay ku dhahdaan beenaalaad tahay, ilaahay siduu soo dira horta marka hore bini aadam. markaasuu nabi huud calayhi salaam noogu jawaaba, ma waxaad la yaabantihiin inuu ilaahay soo diro nin idinka idin kamid oo qoomkiina kamid inuu soo diro la yaabantihiin? ilaahay sookii maaha calaa kulli shayin qadiir ah oo wax walba awoodaya. wuxuu ku dhahay sidoo kale xasuusta qowmkii nuux wax badan badi kama foga mudeerkoorun ba ahayn. qowmkii nuux ala ogoodii ay isla khaladka ku dhaceen oo kale ha ku dhaceen idinkuna ay ilaahi subxaana wa tacaala u toobad keena. qowmkani laakiin qowm aada u kibraayay ahaayeen oo nabi huud calayhi salaam way diideen waana eriyeen. nabi huud laakiin kamu harin ee dacwadiisa ayuu sii waday weli inay ilaahi subxaana wa tacaala usoo noqdaan oo shirkiga iska daayaan. nabi huud markaa wuxuu ku lahaa qowmkayga ilaah u toobad keena, aakhirada iyo adduunka laftarkiisa waad badbaadi doontaan. laakiin waxay ugu jawaabeen qowm huudow naga tag, anagu kuma aaminayno, ilaahyadeedana uga tegi mayno si aan adiga ku raacno. oo macnaha waxa laga yaabaaba in ilaahyadeedan midkood ku cadhoonayo oo waalidan kugu salliday. nabi huud oo dacwadiisii wataa ay isla tabtii qowmkii nuux oo kale ku dhahdeen nabi huudow waxaa isla haysana tus, anagu qaar ku aaminana ma nihin.
waxyaabo isku lahaayeen iyagu nooca ka mid ah haddii aad nin idinkeedin ka mid oo bashara aamintaan dad khasaare ayaad tihiin macnaha haddaad huud raacdaan qowm caadow dad khasaare ayaad tihiin bay isku lahaayeen iyagoo ku jeesjeesa ay lahaayeen sidoo kale ma wuxuu idin leeyahay marka dhimataan oo ciid noqotaan ayaa dib laydin soo nooleynaya intaan la halaagin hadaladii nebi huud ku lahaayeen ayuu ahaa nebi huud calayhi salaam markuu qowmkan kari waayey ayuu ilaahay subxaana watacaala isla hadalkii nuux oo kale ku yidhi oo ahaa ilaahay subxaana watacaala ilaahayow ee guule ilaahay subxaana watacaala nuux ugu jawaabay mar dhow ay qoomamayn doonaan qowm caad markaa cadaabkii ayaa bilowday markii ugu horreysa waxaa lagu saliday roob la-aan wax rooba buu arki waayeen markaasuu nebi huud calayhi salaam ku yidhi cadaabkii ayaa bilaabmaya ilaahay subxaana watacaala ka baqa laakiin waxaa ugu jawaaban war waa iska roob la-aan yaro waa iska imaan doonaa roobku nagala tag waxaanaad ku hadlayso markii muddo ku jireen roob la-aantaas ayaa maalmaha ka mid a daruur ka soo baxday meel aada u fog kadib bay daruurtii arkeen yidhahdeen bas khalaas waa dhammaatay waa sheekadu daruurtaasayna dul imaanaysa kadib roob sii deynaysa huuda buuqa nagala tag laakiin nebi huud calayhi salaam kama daba harin wuxuu yihi waa cadaabkii uu gartay nebi huud calayhi salaam waa cadaabkii ee qowmkayga ilaahi subxaana watacaala u toobad keena laakiin way diideen sidooda caadiga ahayd nebi huud markaa iyo intii yarada muuminiinta la socotay way garteen inuu cadaabkii yahay oo dabayli soo socoto markaa way ka dhuunteen acuudu billahi min ashaytaan arajiim كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر waxaana lagu halaagay qowmkan dabayl aada u xoog badan oo ninkii caad ka tirsanaa xoogga weynaa dheeraa ee murqaa waaweynaa gebigiisa inta qaado hawada geyso dhulka kusoo deynaysay kadib madaxiisii jirkiisu kala hadhayeen dabayshaas ayaana sida u dhammaayeen dhammaantood baa halaagtay oo xadaaradoodii burburisay guryahoodii caadna dunidaba ka masaxday nebi huud calayhi salaam iyo intii yarada muuminiinta ay dabaysha ka dhuuntayna way iskaga tegeenba dhulkaas markii dambe dabayshii iyo halaagii dhammaaday dhulkaa way iskaga tegeenba qisadana xigta qisooyinka nebiyada ka tirsan insha allah waa nebi saalex iyo qoomkiisii thamuud la socda insha allah wassalaamu calaykum